24 saac ee la soo dhaafay waxay u ahayd Soomaaliya maalin dheer oo daqiiqad kasta xaalku isbedelayay. Shalay 8 barqanimo ayay bilaabatay dhacdada bedeshay xaalka Geeska Afrika oo gaadhay cidhifyada adduunka. kadib markii Itoobiya ay u qalab qaadatay dhaqangelinta is-afgarad beenaadka ay la gashay maamulka aan sharciyada federaalka iyo tan caalamiga midna haysan ee Somaliland, kaasoo haysta qayb ka mid ah gobolada waqooyi. talaabada ay qaaday Itoobiya waa dhamaadka dhamaystirka waxa ay ugu yeedhay heshiiska badda iyo dhulka ay ku qaadanayso qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya, taasoo ay la gashay hogaamiyaha waqtigiisu dhamaaday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo iskii ugu dhaqaaqay waxaan hore looga sii fakarin oo ah dhaxal wareejin dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa jiilasha uu xukumo. Shila markii ay Itoobiya damacday inay tijaabiso Soomaaliya, waxay dad badan u arkayeen tallaabada Soomaaliya qaaday mid aan ku filnayn daandaansiga nidaamka xukunka Itoobiya, balse midow shacab oo Jamhuuriyadda Federaalka ayaa ka dhashay, waxaana israacay Soomaalidii kala tagsaneed rubac qarniga si aan kala har lahayn ayaana codka Soomaalinimada loo mideeyay. Dharbaxadii koobaad oo haleeshay Itoobiya arbacadii shalay ma ahayn maalin u fiican Itoobiya iyo Muuse Biixi, waxayna ahayd daraar ay gaartay gacanta Soomaaliya oo tustay inaan aadi karin musdaaqaadka maandeeq ee biyaha iyo berigaba. wejigabax iyo filanwa ayaa ilaa hadda ay ku tahay dhinacyadiis afgarad ka seexay kowdii bishanna. wax ka yar 20 daqiiqo ayaa looga saaray hawada Soomaaliya diyaarad ku soo xadgudubtay oo ka timid Itoobiya kuna duuleysay nambarka 83-72. waa dharbaxadii koobaad oo haleeshay Itoobiya, waxaana la xaqiijiyay inay soo socdaan tallaabooyin kale oo xayndaabka sharci ku soo celinaya hogaamiyaha Itoobiya iyo xukunkiisa. baraaruga bulsho iyo midow qaran soo galitaanka Itoobiya ee hawada Soomaaliya iyo afgaradkii ay bilowgii bishan ku saxiixeen Addis Ababa waxay dhaqaajisay qalbiyada wadaniyiinta, waxayna cushay laabaha wadaniga ee ku dhaqan labada raasi iyo lughaya inta u dhaxaysa. inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku hadlay luuqad adag oo ka dhana damaca aan soconayn Itoobiya, waxay muujiyeen inay barbar taagan yihiin hoggaanka dalka. tan ayaana ahayd baraarugii ugu weynaa ee kadib xorriyaddii 1960 waxaa lagu fasiray durba midow qaran oo dowladda federaaliga ee Soomaaliya la eegayo sida ay u maarayso. madaxweynaha siyaasadda Soomaaliya iyo indheergaradka ku hoos nool maamulka Somaliland ayaa isku meel ka istaagay damaca Abiy iyo dalagnaanta Muuse, waxaana in badan oo ka mid ah ay qabaan in dowladda federaalku qaado tallaabo dabarta miyir la'aanta madaxweyne Biixi. Soomaaliya oo siyaasiyan guuleysatay, diblomaasiyaddu waa kaarka ugu sarreeya ee lagu diriro fagaaraha caalamiga. dhowrista qarannimada dhuleed iyo madax bannaanida qaran ee Soomaaliya waa madbac guud oo ay ku asaasan tahay Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya inay hesho taageerada caalamka laga soo bilaabo qorax ka soo bax Beijing galbeed ilaa iyo dalweynaha Mareykanka. waxay Soomaaliya u tahay guul degdeg oo gacanteeda soo gashay. Eritrea, Masar, Turki, Djibouti, urur goboleedka IGAD oo ay Itoobiya sanooyin dheer hoggaanka u haysay, ururka midnimada Afrika iyo jaamacadda Carabta ayaa sheegay in Soomaaliya ay dhowran tahay dal iyo dad ahaanba aan lagu xadgudbi karin. waa jawaab cad oo lagu socodsiiyay Itoobiya, waana guushii ugu weyneed ee ay Soomaaliya ka hesho fagaaraha caalamka xilli muddooyin badan ay ka maqnaaytaa. ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya, ahna dhakhtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho. madaxweyne tallaabo qaata, waan ku ogahay inay ka go'an tahay inaadan dan Soomaaliyeed u saxiixayn ajnabi. hadalkaaguna waxa uu ahaa kii ugu adkaa oo madaxweyne jeediyo sababi karayna dagaal ee madaxweyne dharbaaxo kaama celiso damaca. waa nuxurka warqad furan oo uu diray agaasimihii hore ee Niise Fahad Yaasiin. waxa uu la khidaabay madaxweyne Xasan Sheikh oo uu ku sifeeyay wadani aan danta qarankiisa iyo qarannimada aan dan gaar ah dhaafsan, balse waxa uu sheegay in Itoobiya hadal aysan ku joogin oo ay khasab tahay in xiriirka loo jaro, ciidankeeda laga saaro Soomaaliya, saaxiibada diyaarka laga faa'iideysto iyadana cadowga u arka, saldhigyo ciidan oo militari degdegana la siiyo Masar, Turki iyo Eritrea. talada Fahad waxaa qaba dad badan oo Soomaaliyeed oo og ama darsa xaaladda gudgudoonka gobolka Geeska Afrika. damaca aan gaboobin Itoobiya iyo dunida isku xadgudbaysa ee meel iska dhigtay dhammaan wixii hore loo dajiyay. tallaabaqaadka madaxweyne Xasan Sheikh ayaa loo arkaa dhamaystirka dadaalkiisa oo dalka kaga horjoogayo gumaystaha Itoobiya, nacawda xorriyadda iyo gumasidiidka oo ka hulaaqday awdal. Daily Media waxa ay heshay dhammaan macluumaadyo faahfaahsan oo ku saabsan is-afgaradka Muuse ku saxiixay bilowgii bishan magaalada Addis Ababa
kaasoo Itoobiya u ogolaanaya dhulka iyo badda Jamhuuriyadda Soomaaliya qayb ka mid ah. Is-afgaradka waxaa ku qoran in Addis ay qaadato dhul iyo deegaan Soomaaliyeed oo ku dherarsan ilaa iyo 260 kilomitir oo gudaha badda ku xiraya gobolka faafan ee Soomaali galbeed. Tallaabadani waxa ay muujinaysaa sida aysan maangal u ahayn in dawladda federaaliga ee Soomaaliya ay ku koobnaato kaliya ambaarayn kala duwan oo laga diro fagaarayaasha siyaasadda. Awdal waxa kacsan dadka waxayna u dagaalamayaan jiritaankooda. waxay si aad uga hor yimaadeen gumaysi 60 sano ka hor ay dhiig isaga xoreeyaan sida dadka Awdal uga kaceen falka Muuse kaliya ku dhaqaaqay. waxay calaamad u tahay dadka Soomaaliyeed ay quus ka taagan yihiin inay lumiyaan xorriyadooda aysan ogolayn gumaysi cusub. Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya maxaa u yaala? dalka Soomaaliya waa dal federaali ah. xasumadda oo Muqdisho waxa ka socda isku xirka dawladnimada dalka. laba tallaabo oo degdeg ah inuu qaado madaxweynaha safarkiisa Uganda kadib ayaa la eegi doonaa. waana qaabka uu maareeyo aqoonsisiinta maamulka Awdal oo dhismihiisa degdeg ku socdo iyo sida uu xiriirka Itoobiya ka yeelo 48 saac ee ugu soo wajahan. labadan gal haddii uusan madaxweynuhu ku dhaqaaqin oo aysan dhammayn waxa ay ka dhigan tahay in dadaalka Soomaaliya uu ku dhammaan doono in sharciyada la'aanta Muuse iyo maamulkiisu ay talada gacanta ku sii hayaan midnimada dhuleed iyo madax banaanida qaran ee Soomaaliya ay su'aalo sii dul taagnaadaan. haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa. ballanteenu waa PC.